وبعد فالسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. مقدم كوحيدي ووعدنا يا لكن موضوع ليدي بوعدي بكم صابسنا. الموضوع ليدي والاستشراق اورينتاليزم ودذلك الرجال كويس سميان إنه كبرتان ضد كبريقة أهل الغرب أما ضد قلبات كدجن واستشراق وطلب ما في الشرق والرادين الرادين يان غير بريقو وحي هيان استشراق مروح الواقعي بيا مراحش وصوم مري واستشراق بدائية لغا ورما كدبنا كلاسيكال اورينتيزم ايا لغا ورما كدبنا نيو ميد او عصب لغا ورما الاستشراق الجديد اي كنت الماما مروحي كورمان دوافع ده حاكو كلفي inay reer galbeedku bariga bartaan hadaynu dawaaficda si kooban marka hore u tilmaamno way reer galbeedku ay barasho ugu dhaqaaqeen dadka bariga dega inta badan waxa lagu sifeeyaa wixii iyaga ka soo hadha qaaradan Aasiya oo dhan Afrikana tabacun bay isaga sii tahay qaaradda Aasiya marka intaas oo dhan ayay ku tilmaamaan inay yihiin barigi sharqi al-awsat iyo sharqi al-aqsa iyo waxay u kala qaybiyaan waxay u baranayaan bay isweydiinta leh waxa la yiraahdaa saddex daafic oo kala dambeeya jiray daafic ama sababta koowaad waxay ahayd sabab tabshiiriya iyadoo nimankii mubashiriinta ama munasiriinta ahaa kristanka raggii rabay inay faafiyaan ama ilaaliyaan dadkoodu inuu diintaasi haysto marka ximaayad daakhiliya way u ahayd iyo dacwo khaarajiyaba dadka kale inay diintooda gaadhsiiyaan dad kale haddaad rabto inaad wax gaadhsiisana waa inaad dee kaljarkooda iyo dhaqamadooda iyo diimahooda iyo waxay rumaysayin garanaysaa waa inaad naqdin kartaa waxay haystaan markaa qaybi waxay ahayd sababta kalifaysay in bariga la bartaa daaficaasi ah diiniga ah daafic labaad baa jiray baa la yidhahdaa daafic siyaasiya ama isticmaariya dowladihii reer galbeed khaasatan kuwoodii dambe cilmaaniga noqday aan diintaba xoog u danaynaynin ama diinta hadday la socotana ay ahayd uun shaadh lagu danaysanaya aan diin ahaan looga jeedin qoladaasina bariga aad bay u rabeen inay bartaan sababta waxay ahayd dee gumaysay wadeen dadka aad rabto inaad gumaysato waa inaad garanaysaa wuxuu rumaysan yahay wuxuu ka xanaaqayo iyo meeshuu u liitay iyo halkaad ka geli karto iyo qaabka aad divide and rule ugu samayn karta aad u maamuli karto qaabka aad u xakamayn karto thawraadkiisa iyada wixiisa kugu soo kaca qaabka aad industrial revolutionkii markii uu dhacay aad tijaara u samayn karaysid oo dee isticmaalka waxa la socday inay maxay dhaqaale sameeyaan oo ah raw material inay u helaan warshadahooda iyo suuqyo cusub ay wax ku gadaan inay heli karaan kan dambe isticmaalka cusubina dee waa alhaymana sida golobkaba loo maamuli karo dadku siyaasaadka Maraykan iyo inta uu hogaaminayo uu tabac ugu noqon lahaa oo dunida oo dhan iyagu waxay u qaybiyeen markan dambe markaz ama center iyo peripherals dunida laga maamulo meesha dunida laga maamulo iyo dawladaha hareeraha ayaa loo qaybiyay kaasina daafic buu ahaa keensanaya in barigu waxay hayaan la barto ka u dambeeya waxay yidhaahdaan waa daafic cilmi ah oo barigu dee diin qura mu ahayn afaf baa jiray cimaarado iyo dhismo iyo waxbaa jiray la baranayay folklore iyo dhaqamo iyo culture baa jiray la baranayay luqaad iyo bini aadam cusub baa la baranayay idan sababa cilmiya ayay markii dambena isu rogtay qaybo badan oo istishraaqa ka mid inkastoo dunida cusub ee maanta la joogo cilmigu ay yidhaahdaan waa wadiifa
علمي ولا توظيفية يعني الدولة دا أديكسته علمي وح دولة دا أديكسته وهرمرك الدولة دي لا ما هو مدلة هاي قيب كم مدوية مرك هذه سياسة هي هذه نقالة هي هذه دقالة هي وحنا ولا توظيفية لكن لما هو يضد يجوا أقول رادسونه وضد كل احتراع علمي هان وحبارية صدح ذا قيبود أما صدح ذا الدافع والله شيء وسببها كان استشراقه أما أورينتاليزمكم دين التاريخ هان حق ظهره وحكت المامنو reer galbeedku waxay sheegtaa thaqaafadoodu inay Greek hore iyo Romanski ka soo jeedo inta kale dunida se way dafiraan iyadoo la ogyahay dunida kale wax badan inay ka barteen xataa tan lagu tilmaamayo Greeksku inay tahay thaqaafaadkii dunida la soo ururiyay oo Greekuna tatwiiriyeen si kastaba noqotee Greek waqtiga uu noolaa isagu European isuba aqoonin isubana haysan inuu European Greek markaynu ka warrano Greekii hore waxay soo yaqaaneen inay yihiin shacab mutamayiza oo mutafawwiqa ummad ka koraysa ummadahoo dhan marka Yurubta kale wax hoosay u arkayeen iskumay tirinaynin iyaga ay soo arkayeen umma mutafawwiqa wixii iyaga ka soo hadhana barbar bay oran jireen kelmadan barabarku ama barbarku luqadooda waa aswaat mukhtalida waa عدن لفهمينين مركا قفك في يونانيga ku hadlaana inuu yahay insaan la fahmi karo insaan aqoonti ku dhow philosophy-ga ku dhow cid afafka kale ku hadashana inay tahay dad wax ma garata hatta laatiinku marka wax ma garatada ugu jireen iyaga taariikhdooda hore marka la eego way soo socotay Romanski baa dhaxlay oo dhulka ballaaran dhulka iyagu xukumay waa soo socotay عيسى المسيح بايمي عليه السلام كريستيانتي بايقاتين نمكرر قلبات كريستيانتي قافافي كريستيانتي قاس وحيد بلا بين ومضاها كلاين اي برطان لكن دور قيبات بيو اركيه كو كريستنكا وحي دولتي كاثوليكا هيد ينيرو بيزنطيين موياني حتى بيزنطيين تمركي دنبه waxaa qabsaday dawla islaamiya caalam islaami bay ku beereen ولذلك maanta marka laga tago Protestantka wixii ka horeeyay firq masiixiyad dunida jira waa inta caalam islaami joogto nooc kasta ay yihiinba way kaniisadii galbeedku iyagu way gumaaday intii joogtay hartaqa ahlu bid'a bay u arkayeen loo baahan yahay laga takhaluso laakiin meesha ku ku noolaan kareen waxay ahayd caalam islaami markii kiniisadihii bariga joogay ama sharqiga joogay intoodii badnayd ay dawladda islaamiga ay hoos galeen waliba ay u arkayeen dawladda Romaaniya inay culays ku haysay ama Byzantiyadu inay culays ku haysay oo ay kaba doorbideen la noolaadkii la nool yihiin dadka muslimiinta ah dawladii kristanka ah ama kiniisadii katholiga waxay u fakartay wathaniyiintan cusub iyo wathaniyiintii horeba inay wadankooda ka ilaaliyaan wathaniyiinta hore دور جروب وثنيين أيها يوروب كسر دولي غيبي ونورماندينتي ودت كإسكندنافيا كده جري ودت وثنية وأندين بحسن كاثوليك لا شيء يا قرن كوبي طبعا دي ملها سوغاري با بركاي وثنيين بيهان جرين يوروب ناد فايكنج وحلا إلى هذا التاريخ ده وكل جتان مرة يوروب دولي ما تكو قادين وإنجليز قبصدين وفرنسيس قبصدين وميل والبا قبصدين markii dambana gobolkan France ka mid ah Normand kala ila Normandiyiinta dadka la yiraahdo ayaa degay masiixiyad bay markii dambe qaateen laakiin marka hore wathaniyiin bay haayeen koox kale wathaniyiin oo Yurub khatar ku haysa jirtay oo migrantska dadkii la oran jiray Siberia dhulka ka yimi waa dadkii degay wadankan Major la yiraahdo Hungary soo degay iyana wathaniyiin bay haayeen markii dambe masiixiyada iyana qaateen kiniisaddu markaa waxay markaysay say labada qole wathaniyiinta u yihiin muslimiintuna inay wathaniyiin kale u yihiin oo kale oo iyana sana macaabudo soo socdaynayeen marka hatta waaga hore muslimka waxa uu yaqaaneen magaca la yiraahdo Sarisan waa magac Greek hore oo ka yimi
khaymadaa la yidhaahdaa taambuuggan yar ee carabtu ay hoosgeli jirtay marka waa dadkii taambuugga diinba looma sifaynaynin waxaana loo arkayay inay yihiin uun hardaqa cusub oo iyana bidca cusub oo wathaniya marka la soo gaadho qarnigii 11aad iyo wixii ka dambeeyey oo ah qarnigii ay labada qole hore aynu sheegaynaan masiixiyadda qaateen ayaa Yurubiyankii waxay noqdeen dawlad weyn ama dad weyn oo masiixiyiina tira ahaan batay dhaqaale ahaan koray een diin ahaan wathaniyiinta ku hareereysnayd ay masiixiyadda qaateen markaas waxay bilaabeen xidhiidhkooda ugu badan ay leeyihiin galbeed bariga leeyihiin waa markay bilaabeen waxaan loo yaqaan crusadeska ama al-hurub as-salibiyya dagaaladii ay ku soo qaadeen dawladaha muslimka ah hurub as-salibiyya waxa bilaabay boobkii la oran jiray Arbanka labaad boobkaasi Yurub wuxuu ugu yeedhay dagaal weyn in lagu qaado nimanka kan oo siiba laga xoreeyo qibladii Bayt al-Maqdis marka muslimiinta muddo ka talinaysa in laga xoreeyo ay meeshaasi dib u qabsadaan dagaalkii labaad kuma guuleysan ku labaad bay soo qaadeen kuma guuleysanin ku saddexaad bay soo qaadeen oo ay hogaaminayaan boqortooyooyinka Yurub ugu weynaa boqorkii France iyo Ingiriiska ka talinayay iyo boqorkii uu talinayay al-Imbratoriya Romaniya al-Muqaddasa Germany iyo Talyaani that means Germany iyo Talyaani iyo Francis iyo Ingiriis iyo waxa kale ay caga ku wataan ayaa dagaal hadana soo qaaday xuruubta saliibiga loo yaqaan 7 dagaal oo kala dambeeyay bay muslimka ku soo qaadeen laakiin kaasi waa dagaalkii ugu weynaa ay jabaan markaa waa dagaalkii afraad waqtigaas laga bilaabo waxay bilaabeen warnimankani maxay aaminsan bal horta maynu ogaano dadkoodii u tagay tijaaradii tagay dagaaladii la isdhex galay xeebahan Shaam oo ay qabsadeen meelahan imka Lebanon agagaarkeeda magaalooyin Suuriya tuulooyin yar oo xeebta ku taxan oo ay qabsadeen waxa bilaabmay in la yiraahdo al-aakhar muxuu yahay dadka kale maxay aaminsan yihiin waa marka ay bilaabeen awal tarjamadii koowaad ee quraanka la tarjumo Robert of Keaton in la oran jiray tarjamadii koowaad ee laatiiniga ahayd baan filayaa kitaabka quraanka tarjamay fikradda markaa soo duuduubay Yurub ee waqtigaasi waxay ahayd fikrad islaamka ay culaag yihiin bal ay liidayaan oo dad liitay oo arkayaan nabi maxamed aan nabi loo arkaynin risaaladu soo taamid samada ka timi aan loo arkaynin hatta waa kooda baxdiga cilmiga ah iyo ka shacbigaaba waa isku raacisnaayeen waxaanay u arkayeen in dacaayadaha ugu badan mujtamaca Yurub lagu faafiyo si aan dadka Yurub degani u qaadanin diinta marka waxay bilaabeen dacaayada aad u tiro badan ila xad Yurub waaga laga dhaadhiciyay muslimiintu inay yana wathaniyiin yihiin saddex ilaah inay yana caabudaan Muhammad ilaah la yiraahdo inay caabudaan Apollo ilaah la yiraahdo inay caabudaan Tamagant ilaah la yiraahdo inay caabudaan Apollo waa ilaahi cadceedda ay rumaysanaayeen Yunaaniyiintii hore oo ah ilaaha muusiqada iyo gabayada iyo waxa kan Tamagantuna waa ilaaha cunfiga iyo dagaalka iyo waxa shacabka Yurub waxa laga dhaadhiciyay saddexda ilaah in muslimku rumaysan yahay waxay noqotay riwaayaadka Yurub lagu dhigo ama kutirikuteenta dadku ku sheekaysto ama waxa inay qaabkaasi u bataan warka waxa tilmaamaya ninkii lahaa taariikh al-istishraq wa siyaasati ala yiraahdo Zakari Luqman magac yahuudi oo tawraatiya Zakari wa Zakariya Luqman waa Luqman Zakari Luqman boogiisa kaga waramayo history of Orientalism and Policies ayuu wuxuu ku tilmaamaya qadaayadka taariikhan uga waramaya muddo markay waxaasi socdeen waxaan jeclay inaan iska soo koobo dagaaladii hore ay ku guuleysan waayeen Yurub ayaa waxa bilaabmay dagaalo kale oo nimankii Tataarka la oran jiray soo qaadeen
كم له بقولي الله بعتقي ملهاسي إلى يكون له بقولي الله بيا فرتنكي أي كبا قبصدين يوروب تبارك أي ببدن وكمدا بولند يا مجر يدور كاساي قبصدين وحراعي كن له بقولي اللي حدن كين بغداد بقبصدان مركا waxay u arkeen wathaniyiintii muslimiinta wathaniye kale oo kaga filaatay ciidan xagga alle laga soo diray oo cadawgoodii ku beegmay inay heleen waxay bilaabeen markaa inay nimanka xidhiidh fiican la sameeyaan safaarada u diraan loo soo diro dad badan oo la kulmaya laakiin taasina nasiib darro may guulaysanin waayo tataarkii baa islaamay akhiiran dowladii tataarka ahaa ayaa islaamay dabeetana may guulaysanin fikraddii reer galbeedka ahayd nimankaasi sidii looga takhallusi lahaa labadan arrinba markii ay dhammaadeen waxaa bilaabmay yurub inay yidhaahdaan waa bal nimankan aan si dhaba u daraasayno raggii ku dhawaaqayay waxaa ka mid ah Roger Bacon farsamadan tajriibiga ninkii soo bilaabay Francis Bacon ka horreeyay Roger Bacon kii Ingiriis Francis Bacon oo Francis ayo groupkiisa waxay bilaabeen masiixiyiinta in la baro muslimku wuxuu yahay iyo reer barigu in si fiican loo barto in luqadaha la barto تدين تو ألف تاريخ تو مركي مريسي أيام مجمع كنيسية فيانا مقالة فرانسيسكا كميدا يسوي يمي أيام حقوقاتين إن جامعات كرر قلبات لغة عربية لغة يونانية لغة السريانية لغات كرر بريقو كهادلو إن لغو جامعاتك جامعة باريس أوكسفورد بولونيا أو جامعة ديوغو غدين سنيدة يوروبا كنت عليه تالياني قول هانشري أفينون و فرانسيسكا كنت على يدنا سلامانكا وإسبين بكنت على قرار بالغاتي انتازو جامعات بين في عربية وحلقوا بلابو غير بريق الله برتو يوروبنا وحي قشي عصر النهضة رينيسنسكي عندي بصنولا شيء هي شيء جايين أن يوروبتي دين تكون جنيد ويكب حذاي وحي وصاب حذاي يوروبتي سكولر قاعد يوروب علمانية وحد حديدا كبل مي الإصلاح الديني بروتستانكي كالفين يا لوثر نمانكي إصلاحيين تهاي الدين تودا كنيسة رومانسكي كسر جستا دبوا بلا مي وقتها وحي لقى صوب بلابو ووقته بلا مي أورينتاليسم كالرسمي قاعي أورينت كاهورك سكا كتير كتين يدعى يدو يسقبضنا لكن مركب بو بلا مي أورينتاليسم كي الرسمي قاعي نكوشي كرنا سيبا قرنيجي سيدل يتبناد عن نحنو يسقال يتبناد خاصة أورينتاليسم كان دنبي يو برنيين qaar waxay yiraahdeen waa contact zoneska marka haday xadaaraduhu kulmaan waxa bilaabmay in la isbarto ay xadaaradu waliba aragtiba dunida ka rumaysantay nolosha ka rumaysantay manduuma akhlaaqiya ay leedahay ummad kastaaba waxay qasab noqotay bay leeyeen ka kale la barto qaarna waxay leeyeen ma xuruub salibiya markay ku khasaareen ayay bilaabeen in soft power ka la isticmaalo hard power ki socon waaye in soft power loo wareego sidaba waxay u bilaabantay baa la yiraahdaa xabl al-faransiya li Masar markay timid Napoleon Bonaparte dagaaladiisii markuu soo qaaday uu Masar ku qabsanayay 1798 ila 1801 Napoleon Bonaparte wuxuu watay group culamo ah oo loogu talagalay inay daraasad cilmiya ku sameeyaan wadankan ay qabsadeen Masar la yiraahdo iyo barigaba waxa laga rumaysay waqtigaas oo bilaabmay baa la yiraahdaa istishraaqi academic ah in si academic ah wax loo baaro oo wadaadkii wax dacaayadeynayay iyo wixii laga hadlayay iyo diimihii la iska horgeynayay inta laga tago bal nimankan reer bariga la yiraahdo in si dhaba loo barto kaasna waxa si daba yaalay de fikra isticmaariye iyo siyaasadda iyo dhaqaale iyo baab kale oo aan ahayn inta badan kii diiniga ah inuu bilaabmo waka uu xoog uga waramaya marka hada akhridaan oo radinayo buugi Edward Said
الاستشراق بوغان عانكا نقضي dunida badhna waa radidaa badh waa aqbalaan laakiin waxay yidhaahdaan waa classical orientalismka oo buuggii ugu fuucnaaya naqdiye laga qoro ama cilmigaaba dib u nooleeyay kadib ay dadku waa u qaybsameen in isaga ayida iyo in kasoo horjeedo naqdada loo qaybsamay laakiin waxay yidhahdaan aqoonta wuxuu dib u xoog ugu nooleeyay Edward Said fikradiisa oo dhamina laba shay bay ku salaysan tahay wuxuu leeyahay reer gobolku waxaan u baranayeen waxaan u wadeenba waa laba shay waa nazca almaadiya oo ah Faransiiska iyo Ingiriiska oo raadinayay suuqyo jadiida inay u helaan warshadahoodii iyo waxoodii iyo alhuwiya identity iyagoo rabay dunida inay identity-geeda bedelaan oo European culture inay dunida ku faafiyaan oo dadku laga dhigo wixii European culture haystaana inuu horu maray ama mutaqaddim yahay ninkii aan culture ka haysanina inuu yahay maxay mutakhallif ilaa hadda dee waa fikrada aynu rumaysanay haddii dresskooda iyo dharkooda iyo timaxiirashadooda iyo intaa haddii lagugu arkana waa dee nin westernka ka yimo khatara inaad tahay baad u muuqanaysaa haddii dee labadeena go-a Soomaaliyeed ama shaadhiya macawis ama khamiis ama maryahan bariga lagugu arkana waa iska dee wadaad meelaha ka soo toosay baan waxba kala ogeyn suuradda ah yani waa culturally bay thaqaaf ahaan bay dunida u gumaysteen marka wuxuu leeyahay Edward Said waa nin Falastiini oo Kristana laakiin jaamacadkan Mareykan professoradii ugu caansan ahaan jiray waxna ku bartay deganaana ani wastarana dhalashadiisii horunba ah inuu ka yimi Falastiin inuu ka yimi waa Falastiini Kristan asalkiisu laakiin waa nin ku koray Yurub professorada laga dambeeyana ah wuxuu leeyahay isagu classical orientalism koodhan uu naqdinaya labadan shay un bay faafinayaan buu leeyahay qadiyada dhaqaale oo wadannadaasi in la gumaysto oo dhaqaale ahaan loo maalo iyo qadiyadaasi huwiyada ama identity-ga ku saabsan idan aqoontu waxay noqotay marka kan bariga la baranayaa si loo gumaysto si loo maamulo si loo kala qaybiyo si dhaqaalahooda loo helo si politically ay u noqdaan haymanada waddankaasi inay ku hoos jiraan iyo in laga dhigo waliba isticmaalka in la tabriiriyo colonialismku dee umay bixinin innaga af Soomaaliga waxaynu idhahnaa gumaysi socanka maaha laakiin kelmadda af Carabiga ah colonialism maaha gumaysi maaha kelmadda Ingiriisigana maaha ta Carabigana maaha waxa weeyaan waa beeridii iyo camiraadii dhulka in la camiro dhulka in la gumaysto maaha waa in la camiro iyagu markaas saasay u arkayaan colonialku macnihiisu waxayka ah waa tacmiirkii waa cultivationkii waa in horumar loo sameeyo كلمة في عربي هنا والله إن لا عميرة ويان استعمار وطلب العمران وإن لا عميرة نلقى لكن لغة الصومالية بقى صحسن مركي تلي قميسي تنبها بيرفكت إن لا استعماله صحسن إيجا قميستها سي وحي السعودين مستشرقين تي وحي السعودين إنه تبريريان إنه إلهدان والله هروم مرينة يددك كان حضارة على برية وحب الأب ماي مركزي أدواتكي معرفته أنت بدن واقع هروحها اللينغويستكس مستشرقين تو وحي عندنا متخصصين لغة اللسانيات وحي أدوات كاديك سنيين وفيلولوجي أما علم فقه اللغة إن نصوص التفسير كذا لقد راديا دقاك ومدى يوحي لهذا هيوردان وحا أدوات كادتك أديك سنيين منظمات ويلهاين أفراد بيلهاين شبه أفراد بيلهاين وحول بوالهاين ما لها لغو أديك سنيين فكلت جامعة دي دكتورة بدن بالفري إنجليز كان بلابي أوغسفورد إدنبرا يكواسا بلابي جمعيات بالسمية ورورو مثلا بريتش كونسل كيو كلام كميدا وجمعية حكومية لكن كوساب سنة ثقافة إنجليز كان دكلا برو دوني دكلا لوجيو مجلات بيلهاين معاهد بيسميين انستيتوتس اورينتاليستيكا مؤتمرات بلابين
oo 1837 bay mu'tamarkii koowaad ee istishraaqaa qabteen mu'tamarkii ugu dambeeyeyna 1973 baa la qabtay 1937 baan u jeedaa baa la qabtay adigu 100 sano buu socday 100 sannadood markan dambe mu'tamarka ugu dambeeyay 100 sano jirkoodii markay qabanayeen waxa laga wada hadlay magac miska bedela magacan mustashriqa iyo istishraaqa la yiraahdo waxay qaateen go'aanka in magaca laga takhaluso magacii waa la bedelay markii loo codeeyay waxa loo bedelay daraasaad sharqi awsatiya daraasaad kada daraasaad waxa lagu daray afar fanni oo kamida funuunta lagu dhigto jaamacaadka linguistics-ka qolada dhigata qayb istishraaq ay dhigtaan qolada anthropology-ga dhigta qolada sociology-ga dhigta waxa laga dhigay un furuucdan kale ee human sciences-ka loo yaqaano ayaa lagu dhexdaadiyay laakiin waa laga saaray inuu noqdo farciisi gaarka ahaan jiray orientalism-ka ahaan jiray inuu ahaado waa laga dhex saaray waxay bilaabeen markaa jaamacaadka in lagu daraaseeyo funuunta kalena lagu dhex daro awal baxthigu baxthi lugawiyo quru ahaa imka maalan soomaalida marka la yidhaahdo khubaradii ingiriiska wax ka qortay waa niman linguistiisa uu nimanka aynu baadhna u noqonnaa waa andarawiski iyo ayam lewisi iyo gruubka kan waa mustashriqiin alqudaama falsafa alqadiima bay wateen oo dadka luqaadkooda in la baadho dabeetana laga soo saaro dadka kaljaradooda iyo dhaqankooda iyo caqaa'idooda iyo inay noo soo qufaan waaqbaa caabudi jirteen iyo halkan baa waxaasi waa ariiqa istishraaqiya waddan kasta turkiga iyo kuwa kan madax iyo waxbay u soo saareen masaarida iyo kuwan de waxa la yidhi faraacina ahaydeen islaamkan iyo waxana waa shalayeen faraacina ahaydeen oo luqadiinii hore hiriliiqiga ahayd baa u baahan in la nooleeyo ahraamtan iyo kano xadaarada noocaasaa lahaydeen mesopotamias baa idinku haydeen haddaa ciraaqtiina waa kan كل ذلك نمك وذي ما يهين حتى anthropologies أما أما كوا كان وحين نمن linguistics كنت تخصصي فقه اللغة أنا أديك سنة orientalist كاسهرنا القديم كاه وحي لقب بلابو دقال كل بعد الدنيا ده مركب لما هذا دقال كل بعد حيسي هي الحرب الباردة مركب بلاب مي على كي يوروبو دعي فرانسيسكي إنجليزكي دنيا هجامين أيه ولا قد خلصي وحصاب حي دولة عصب وعلن جديد له ودنيا هجامين إسا وأمريكا لا يلاحظه نمكي وحي مستشرقين تهورك هراي حقا سيوجورين جروب عصبنا وبلابين رجع جوري وحكم إذا هاملتون جيب 1895 إلى 1971 بنولا هاملتون جيب هو سكوتش وهيستوريان لكن مستشرقة وقولدي وجورتي مركا حق مريكان كأني كبلابان الاستشراق الجديد أمريكا كبلابمي وحكم إذا برنارد لويس وإذا هذان ده ورجع الداجة استشراقي قرني تجيبه هي قرن جنبها بلويسي وهذا بقول شر نافي waxaan filayaa 2018 kii buu dhintay filayaa 2018 ayuu dhintay 1916 uu dhashay 102 sano meelahaas uu jiray waa akademigii tala bixinta Bosch labadii dhalayba uu ahaa la taliyahooda waxa kan weerarkii Ciraaq iyo Afghanistan iyo waxa kan waa ninkii talada ka bixinayay Bernard Lewis waa mustashriq caan ah markii dambena dawaa'irkaasi ku biiray استشراق عصوب أمريكانكو مجعينا وبدلمي قابك استشراقا ولا بدلي وحصاب حي regional studies وحيد هذا Amazon studies وهالكي وهانشري أول مسلم كأي عربتا يكوا أنت وقبضا له مرار كقاركود استشراقي قديم كها شينا يندي يكون لوسو دريشري لكن كان ضمبه zone studies بالغادي ومركا قبل كستين سيديسا لو دراسيو لغديسا دينتيسا كالجركيسا دقنكيسا أفكيسا يوها يستوردن وحسي حقيا شيء
markii ay bilaabeen xarakaadka islaamiga ah in ka caalamul islaami lagu hayaa xoog u sii bato oo mujtamaca muslimka la yiraahdo sidoo u dhisan yahay iyo thawraadkan cusub iyo aragtiyaan cusub ka soo baxay iyo siday u dhisan yihiin khilaafaadka iyaga dhexdooda yaala mukawanaadkooda ijtimaaciga dadkooda taasiiriya oo malaynaysa maanta 10 odayo Cambridge sooga inay Soomaaliland kaaga aqoon badan yihiin odayadeeda dhaqanka ka yaqaaniin dadka mu'athirka ka yaqaaniin saraakiisheeda ciidan ka yaqaaniin wadanka iyo jugraafigiisa ka yaqaaniin dhaqaalihiisa waa 10 odayo jooga Cambridge University ayaa ka badiya nin kasto maanta Soomaaliland degan uga aqoon badan Soomaaliland caalamul islaam oo dhan waa la mid anta wadan leeyahay waxay bilaabeen waayo waxa la rabaa wadanadan in loo taliyo aanay haymanada ka bixin الهيمنة العالمية إن أنا كبح كريم أدوات كلا أديكسدي مركا هذا linguistics وكصباحي وعلوم الإنسانية دمانتد أما anthropology هالنقطة sociology هالنقطة أما تاريخ هالنقطة أما لسانيات linguistics هالنقطة وعلوم الإنسانية هردم بهذا field كقوة جرته وحصابحي أول أكاديميك قرباء هيد أكاديميك مركز لأنه وحنا وجدنا جامعات كي تخصصات كجامعي قابا هيد ويدافت هذا وحي سميان وحوي قانين محي مراكز البحث research centers أما وحوي قانين مستودعات الأفكار think tanks مراكز نقرأ ما جنا وحي ليهين كن يتضوى بقول يتضوى think tank بمراكز نقرأ كياله قياس kun iyo 700 iyo 770 meel oo lagu research gareeyo caalamkan ay ku noolee dibadda ku yaala inta dadka research gareeya barigii hore waxay ahaan jireen dad takhasusaadkan cilmiga ah imka ma aha kuwa soo qura akademiyiintii ficlan waa joogan qayb ka mid ah waxa kale oo jooga saraakiil mutaqaacida ciidamada militariga nimanka istiraatiijiyada dhigi jiray qayb ka mid ah waxa kale oo jooga niman siyaasiyiin ah waxa kale oo jooga niman saxafiyiin ah idan waa dad khaliita oo aan ahayn dad akademic oo quraan ahayn ee noocyada tira badan qaarkood afkaar ay aaminsanayeen niman siyaasiyiin ah lagu aasaasay oo dabeetana ay dariiqeedii hayaan مثلا كارتر سنتر باجرا أو كوان كمدا نيكسون سنتر باجرا أو كوان كمدا جيمس بيكر سنتر باجرا أو كوان كمدا دمان تودوا ريسيرش سنترز أما think tanks أول هدو مسألة علمية هذا واي كبحضي هذا وحي حوق وحرين كوا صودمي أحزاب السياسية بنتاجنك هي دولة السياسة دي marka sunaaci القرار السياسي waxa lagu gorfeeyaa markay qoladani soo daraasayso kadib ayuu soo gaaraa qolada siyaasadda ee go'aamada gaaraysa sadaradeed think tankiska kani qayb waa dimuqraadiyiin oo waxa ay hoos tagaan xisbiga dimuqraadiga iyo afkaartiisa ay ku salaysan yihiin sida wax loo baxsanayo qayb waa qoladan kale muxaafidiinta ayay ku salaysan yihiin afkaartooda marka hadda waxay u badan yihiin think tankiska aan sheegay qayb ka mid ah waxay yiraahdaan 58% 25 sanadood ugu dambeeyaba la dhisay boqolkiiba 8 marakista ka mid ah 25 sanadood ugu dambeeyay baa la dhisay maxay baxsinayaan tusaalayaal baa ku siinaya kooban مثلا gabadha la yiraahdo Munira Rashad الجندر في الشرق الأوسط مقالك كجا ورميسا waxay tilmaamaysaa 107 buug oo gabadha sharqul awsadka degan ka waramayay qoreen 2000 ilaa 2009 waa 9 sanadood gudahood inanta muslimada ee sharqul awsadka degan baa laga qoray 107 buug maxaa ku inantan ku libdhay baad u malaynaysaa laga raadacaynaya وإذا كان يمكن أركيا حقوق الضمر كيا واحد ضمر كيا ضمر كان يا ضمر كان تين تاكس ما كذب يا دب ما كذب يا بوكسن قرايو بحثين يجي أو فناس كرين يوم وضع بقولي تدبات بوك بك قرين مثلا واحد سيدتنات كوحي كذب بيجي الأصولية الإسلامية بيد هذان سنة كيو ويران لا بقولي سيدت بوك بك صباحا
الأصولية الإسلامية fundamentalist كان هي terrorist كان واحد كلام قشان مسلم كا حق شركة بقول إيه سيدات بوك بكسب حبيلي وإنما كان قرآن think tanks كي يكون كاني استشراقا عصبي مركا لما قالوا آدو حرية هذا مخابراتك عيدا مضى يصنع القرار انتها سيكون حرية إنما كان بحوث تنرد مركا أول بحث علمي هذا بحث علمي معها وأيوه waxay yiraahdaan hadda waxa la wadaaba midiga kamida wuxuu leeyahay buxuuta la sameeyay qaarkood waxay yiraahdaan disposal knowledge aqoonta la adeegsaday hadhowna qashinka lagu rido Iraq baa haysata hubka nuclear-ka ay qorayaan oo baadhayaan oo la soo saarayaan bugag lagu qorayaan kano sunnac qaraar ka qaadanaya go'aanko hadhowna waxay leeyahay waa disposal knowledge وإن أقنت قشن كالجور الزبالة ده لغطورة حدونا معها ظرف يوم بلا الربعين لهذيك السنة أقول رسمية وما هي مؤسسات كقاركود دي وزارة الدفاع بابي توسو حرية نخرج يمكن مؤسسة الراند دي بنتاجن كيكو حرنتي إذا المؤسسات كان دمبر ريسيرش ريسك بريق الدراسين هي اللي يقول هو خبير magacii hore way iska bedeleen mustashriqa imka khabiir la yiraahdo waxa lagu oranayaa khabiirka Soomaaliland ku takhasusay waa ninkaas waa khabiir dhaqaalaha Soomaaliland ka hadla waa khabiir siyaasadka Soomaaliland wax laga weydiiyo waa khabiir saasa lagu oranay macnaheedu waa maxay kelmadii mustashriqa ahayd waxa la yiri inaga dhiga meel way waxay wadataa taariikhan fiicnayn oo tiro badan oo mubashiriin iyo waxbay dabada ku sidataa maadaama duwalku ay cilmaani noqdeen secular system la qaatay تاريخ ظاهر سي لوغا تخلص وحلو بخيي خبراء يني خبراء ugu weyn استشراقا جديد ka صدح nin baa waday waa bay yiraahdaan nin warqa hore ninka ka soo hadhay waa Bernard Lewis هذا انجليزي historian asliyan waa nin academic لكن waxay yiraahdaan waa academic idaaratu Bush hagayay dhamaanteed bay ku tilmaamaan لما كتابه عنه ليه مدمرك هراء مقال بوها وحلا أين الخطأ وحال فيلي عراق يدور كامرك اللي قبصده إن على ما لقى هراء من دونية فلاور يعني كاسيد دراسات كودية وكتل بامين نين دكتاتور ماشى هيستمر كمريكا ولا سودا وين هي تيمرك يدعي ويدي وحيل هذين أين الخطأ قفكوا حبوك يمي مركا هراء مقال بوقراي مركي دنا بوق بوكاديجي يبوق لبعض الله هذا أزمة الإسلام أزمة ما problem كإسلام الله هذا بوقتي سام فكرة لويس وكوجد بيني يا وحويان مسلمين تو وحدب كل نقضي هزائمتي يشبكي لبعض قرني قدام بيه كل عاي دبتنا modernization كي اللي قبسن كروايين marka waxa ku dhacay laba shay buu leeyo reer galbeedku ay mucjabin ku yiin la yaabay xadarada reer galbeed halkay martay iyo xaasidnimo xiqda ay ka xun yiin horumarkeena labada xanuun baa wada haya buu leeyahay odayga weyn laga dambeeyaa wuxuu leeyahay muslimka labadaas wada haya afkaar kale oo iska macquul ah uu leeyahay oo dawladaha bariga iyo markuu ka warramayo wuxuu leeyahay barigu buu yiri ninka reer bariga buu yiri sultan powerku waa meel loo shaqo tago ninku powerka uu ku dagaalamayaa si uu lacag u helo dabeetana wuu ilaashanayaa marnaba ka daadeg maayo waa meeshii lacagtu ka soo galaysay halka galbeedka buu yiri ninku intuu soo shaqaysto dabeetana uu powerka soo raadiyo wuxuu leeyahay fikradu ka bixinay caalam islaam waxa weeyaan iyo bariga wuxuu leeyahay waa meel powerku waa lacagta ninku wuxuu powerka u raadinayaa wax soo boobtid buu leeyahay marka waa lusus sharciyin buu leeyahay waa tuuga sharciyeysan oo meesha sare qabso wadanka boob ha ka dhicin xaji si aad waxaad si boobi karto si boobto halka buu leeyahay fikradda reer galbeedku ay tahay soo xoogso markaad lacagaysato powerka raadi ay tahay uu qabaa وطروحاتكيسا أفكارتيسا أرديديسا قادتي وحا كميدا مارتن كريمر نكان لا يراهدو نكا قوة ينسيتا وحا كميدا دانيال بابيس كويوغا ونعب مسلمين تبو كجرا وقلدا قبطة
مسلم معتدل يا متطرف ما جري وحبه اسلام متطرف بولي اسلام كان متطرف بولي دانيال بابي سحولي هي مسلم معتدل يو مسلم متطرف يو قيد تقسيم كاس صح ما بولي اي waxa weeyaan buu leeyahay islaamnimada lafteeda ayaa tatarruf ka buu leeyahay marka waxaad kala qaybinaysaa ma jiro kuwa hore reer galbeedka qura mustashriqiin oo jira kuwa reer bariga ku biirayna waa jiraan hooyana meelahooda ka tirsan sida Bassam Tiibigan Suuriga oo kale ama Fuad al-Ajami al-Labnani ama Rafaa'il Bataay inuu Israa'iiliya rajaynaya ninkan la al-aql al-arabi buu galay dhado oo leh carabnimadu buu leeyahay waa laba shay waa tabiica wahshiya oo qadadan bin aadam hina wax dila iyo tabiica shabaqiya erotic people dad shahwaaniya dumarku daba socda waa labada kooxood buu leeyahay dad carab maqasho waa macnihiisu waa labada buu leeyahay wax kale uu sheegayo ma leh wana kitaabka caynka qoraya waa kitaabkii ugu mudnaaya qasab ahayd bantaaganka madaxdiisu inay akhrido si markay ku soo duulayeen Afghanistan iyo Iraq iyo kuwa kale waa kitaabkii loo daraasayn jiray bal mid kamida Abu Ghuraib soo garanaysan jeelkii ku yaalay Iraq dadka lagu torjiray lagu qaqawinayay kuwii waxa sameeyay mid kamida la yiri maxaad waxan u samaysay de waa buugaana loo dhigay buu leeyahay wixii uu sheegay buu ku marmarsooday على كل حال waxay qabaan mustashriqiintan jududka dambe kuwan aan sheegay ardadooda ahi jiilka labaad siiba ahi jiilka labaad waxay qabaan fikradda irhaabku judur islaami yulay ruudkiisu waa islaamnimada ay qabaan waxa kamida saddexda oday mid waa Bernard Lewis odayga gaboobay midna waa Samuel Huntington Samuel waa ninkii lahaa Saddam al-Hadarat civilization clashes isaguna wuxuu qabaa fikrada islaamku marnaba lama socon karo modernization and democracy marka muslim baan ahay iyo modern baan ahay ama muslim baan ahay iyo democratic baan ahay suurtagal ma aha buu leeyahay sida daraadeed la budda min Saddam buu leeyahay waa qasab inaynu iska hornimaadno istillah waa qasab buu leeyahay waxa kaloo kamid ah nimankan وين مستشرقين هذا فرانسيس فوكيامو أنا بوليتيشن صدق دنين تخصص كود وكال وضعنا مدوا سياسة مدوا حضارات مدوا هيستوري لكن وين نجي استشراقي وده السعودية ولا جت تقول استشراق وحكومة شراء مكان محي هو human sciences كلا نوعه فرانسيس فوكيامو قرأي مقال عام ولا يراهضه خطرت مسلمين تيوروب دقن marka wuxuu leeyahay waxa muslimka Yurub hijrooday meesha deganay khatar waa bamar uu qarxaya wuxuu kaloo kitaabkiisa inuu history kitaabkiisaasi waxa uu isku xidhaya fascismka iyo islaamka wuxuu isku xidhaya islaamku buu leeyahay waa an-nudum al-fashiya buu ka tirsan buu leeyahay ama nidaamka shumuuliga ee fascistka buu ku xidhaya qoladaasi waa duqaytida istishraqa jadiidka جيل ير أو كأقون ير كذب بدن نباشرة جيل الثاني كون وانا من خبراء فنون نوقد بيا واجرته لكن جيل كخبرة ير أو كأقون ير كذب بدن أو جيل الثاني يكون المامان باشرة المركان سيدا والرمى يوحى الغياب بين الثلاثة ومستشرق قدام ما إنكار قباها سامية حاجة كلنا الرجل هنا وكوجران طيف كلا كوجرو الرجل له والعنفقان يوحانا وضان إسلام كأصل كما أها وحا أي كتمي بيلين سياسات كبوليسية مدحدود كون قانتو سياسات كان قمعيها ضد كان لطوما يلا ترجر قرين يلا حدا يدري ده عربتك كجرتا ولي بقولي الدولة الأمريكان كوي تاجيريسو أي كدر سنتي بيلين فقرية يا بطالة يا شغلانت يا عيش كريمين يدك وايين وأي كدر سنتي بيلين حدنا ودنا ده دقالو هدي إن رجال قلبتكم ما مشوا ودقالها هان بترول كودي وحدي بقى عند رجال قلبتك يكون شران والله قدر بيلين سياسات كرجال قلبتك يا إسرائيل وحكي استوى السماء سبعين يتاجرتو that's the reason of terrorism بيخبان وكح كلام مستشرقين كميدا ويجوا عن فكرة الله قبل قلادنا له إن تريست كان يوحنا شيء يسمى وحى أبوري وأشياء ذا صلى يسكت دره
dictatorshipka ka jira caalamul islaami oo dowladaha reer galbeedku ay taageerayaan oo rabaan in dictatorkaasi wadanada haysto dhaqaalahoodana ay guranaysaan dadkoodan la gaajaysiiyey faqrigu haleelay shaqada waayay iyo Israa'iil tan wixii ay samaysaba la taageerayo kuwaas ah bay qabaan مثلا فيلسوف فرنسيسا أو فيلسوف سوسيولوجي كتخصصي جان بورتر يا رب الله يرضى هي وحليه هي نظامك عالمي جاي ويلد اوردر كان اي ولا نظام العالمي بيقولي جلوباليزيشن كاي ايا داله شروط عنفيga isaga dhalay buulay waxa عنفيga dhalinaya isaga dhalaba ku tilmaamaya maxay qabaan mustashriqiintan cusub ee reeb tirada badan la sheegaya waxay qabaan i'aadatu tafsiir wax la yiraahdo kuwii hore mustashriqii hore takhasuskoodu wuxuu ahaa inta badan quraanka sunnada taariikhda muslimiinta hore waxa in la daraaseeyo oo la buriyo ayuu ahaa kii classic ah waxa in la daraaseeyo oo la buriyo waxa ka hore taariikhiga philology oo dabeetana la yiraahdo quraanku Siryaani buu ka yimiintiisa badani ama kitaabka Tawraad iyo Injiil baa laga soo naqliyay ama Nabi Maxamed laftiisa baa ahaa wadaad xanaaqay markii hore Kristaanka qaar baa qoray wadaad ma Kristaan oo xanaaqay oo dabeetana rabay inuu magac samaysto ama dhaqamadii qadiimka ahaa buu isku rakibay Maxamedo axaadiista qaar iyo wax inta isu soo ururiyaan ilaa waa dhaqamo qadiim wax marka iyagu waxay rabeen kuwii hore in la buriyo islaamku inuu yahay waxii samada ka yimid kuwa dambe iyagu ma qabaan mas'alada ma rabaan inay isku mashquuliyaan waxaynu u baahannahay bay leeyahay i'aadatu tafsiir islaamka in si kale loo fasiro salafinimadan iyo akhwaanimadan iyo suufiyadan iyo waxaan oo dhan isku dar waa tafsiirkii qadiimka ahaa waxaynu u baahannahay tafsiir jadiid bay leeyihiin oo la socon kara xadaarada cusub marka waxay qabaan in la soo saaro islaam عنيفة جرا يا إسلام مسالمة إسلام خبيثة يا إسلام طيبة إسلام متشددة يا إسلام متسامحة إسلام جيدة يا إسلام حن وحاصرنا موام حي هيمنة العالمية هداد أقبشو يا وسترن قابك وحو ذا هداد أقبشو مسلم كيف في عناية متسامحة هاي الربيبة طاي تفسير كأنا والله أقبليها marka waa in dib loo tafsiiraa nusuusta quraanka iyo xadiisa dawrkii gabadha dawrkii ninka siyaasadda islaamku wuxuu ka qabo waxaan oo dhammi tafsiir jadiid bay u baahan yihiin bay leeyihiin jiilu thanigu marka waa Daniel Daviska waa Martin Creamer waa Michael Cook kii qoray kitaabkii la yiraahdo al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar fi al-islam kitaab la yiraahdo qoray al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar fi al-islam ayuu qoray wuxuu ka warramayaa uu leeyahay waa niman mutatarrifiina wuxuu socdaa waa inta inuu ka warramo simaadkoodu mustashriqiin kale oo inkastoo aynu soo sheegay dad kala gedisaneen ee adwaartiisa soo mataleen qaybo mubashiriin iyo munasiriin oo diin faafisa lahaa qaybo political oo isticmaar iyo siyaasad iyo wadana la gumaysto iyo takhriib albilad يعني وحوقو مثلا نمك مخابرات كلا يدادا أقوم توقف في عنا يديك سدا وحويان بلشين للدراسية هل كي يقول لي دتو الدومين كرتا إن مركا لو سيدايو وحيد هذان وامقاشين وضعي تشاينيز كهاي خبير كهتزول أورنج فكرة دي سي كونفوغا فكرة بتشتاي هذان نكا حق بدني هدو كلا دجال لما تساتسي علينيسا دفعك هذوك يقولوا افترضوا كوكو طوريا marka waxa yiraahdaan waxa ugu fiicani xoogaaga iyo xoogiisa baynad wada adeegsato waxa yiraahdaan markuu faadka kugu nufto uu rabo inuu kugu nufto sidii aad ugu jari lahayd ee ugu banayn lahayd in gacantiisa ugu dhaafto tijaabi laakiin farsamo labaad raaciyo ah xoogiisa xaq uu sii socdaadna gacanta qabo xaq uu socdo uu sii tuur marka waxa yiraahdaan fikradda tani waxa weeyaan isaga xoogiisa inaad ku disho مو حوق يسوي صوت ورينه سبب النقطة إلى الدشو مخابرات واحد هذا وحوقو نكسنا أمد لقول شبيه وحويان بيد هذا يجو وحي الربان إن أدون سيه الرصة يجا وضع مركزيه هل كيوضع مثلا النجا
dee bahashan qabiilka la yidhaahdo waa in laynoo yaro taataabtaa mid waxoogaa la soo siiyey waa inuu boodhka ka yaro jafaa khalaas inta dambe innagaa ku filan iyaga waxaa laga yaabaa shanay waxoogaa u soo dhiibeen inay istaadhka hore sameeyaan oo adigu da-dooda yaal moodaysay ama aqoon-yahanaad moodayso aad ka dambaysay inay kuu istaadhaan laakiin mar hadday istaadhanto iyagu wax dambe ku bixin maayaan innagaa inta dambe kharash garaynayno oo wadaynoo samaynayna idan waxay daraasaadka u sameeyaan inay adigu halkaad u liidato barataan khabiirkan kugu takhasusay dantiisu kugu takhasusay in yar baa jirta oo iyaga ka mid ah oo lilcilmi مثلا مستشرقين هوري قال للعلم وتخصصات جرا فلوغا لوكالي ومستشرقي قري المعجم المفهرس للقرآن ديكشنيري قرآنك وكتابات مفيدة وهي مستشرقين تدع حفاظ ما هن علماء المسلمين كتب تقري جرتي قرآنك كوركو كهي مركا وما باهنين ديكشنيري لغا سو بارو آيات القرآن هو بهين واستدلاله وقرني لكن مستشرقو قرآن كينا هو بهين وحده ليشادو قرآننا ما حفظنا marka waxa loo sameeyay dictionary kalimaadka quraanka oo dhan ku yaalina haduu eray uu ka garanayo uu soo heli karo ayadu meeshay ku taale laakiin marka ardaydiina tan wax baaraysa uu idan anfacaya مثلا waxa kamid ah dictionary-ga quraanka ay sameeyeen 8 kitaab meelahaas iyo 14 kitaab ay soo geeyeen mu'jam as-sunnah وكتاب واوي waxay sameeyeen kutub badan oo islaamiya ay taxqiijiyeen oo dib u soo inkastoo kuwii firqa islaamiga ay dib u soo saareen firqa islaamiga ay kutubtoodii iyagana way taxqiijiyeen oo dib u soo daabacaan على كل حال استشراق waxaan leenahay dawaaficdu ta christianity ama diin faafiska way lahayd waxay lahayd ta isticmaaliga ama politicska ee dawladdu adeegsanayaan waxa uu leeyahay mid cilmiya oo in cilmi baaris la sameeyaa intuba waa jiraan welina waa socdaan dee innaga u baahannahay inaynu lafta iyo timirta kala sooci karno inaynan isku liqinay inaynu kala garan karno khabiir baa qoray in aad la soo boodin khabiirku xaguu ka tirsan yahay backgroundkiisa inaad garatid afkaartu aaminsan inaad garatid buugga waxa loo qoray ama taayfadu ka tirsan inaad garatid think tank uu ka soo baxay ama qaybta soo daabacday inaad garan karaysid wax badan haddaad u fiirsato waad classification-kooda si fiican baad u kala garan kartaa kuwa cilmiga iyo kuwa danta leh iyo kuwa sunta iyo isku daraya cilmigaba waa la kala sooci karaa waxaan u malaynayaa khulaasadu mawduuca haddii inuu faa'iido ku jirto wuxuu yahay inaynu baranno dunidu inay innagana ayna baranayso ogaano kaasi waa mid ka labaad inaynu baranno sida laynoo bartay si aynu isu difaaci karno raggan aynu la taliyaasha wada haysan iyo khabiirka iyo Soomaalidu imka way farxaan hadday Andarwiski iyo Ayb Lewis iyo maqlaan inay wax fiican u qabteen bay moodayaan oo isticmaal bay hogaaminayaan wadayadii meeshan gumaysan jiray bay kamid ahaayeen marka inaynu baranno waxa laynoo baranayo haddii ay wax soo kordhiyeenna wixii faa'iido lana inaynu ka qaadanno waxa kalena aynu iska moosi karno daraasaadka macrifiga ama culumta insaaniga ee dunidu maanta aad u baratay dee waxay u baahan yihiin waa wax isku jire idinna dee jaamacad baa joogtaan macallimiin iyo isku dararday aqoonta human scienceska maanta la yidhaahdo dunida iyada lagu hogaamiyaa injineerku waa tumaal injineeradoo dhan isku dal waa baanada gaadhiga lagu furo karo yani ninka gaadhiga furfuraya khabiirkii muxuu u baahan yahay baanada iyo qalab iyo mashiin uu ku eegayo waxaas u baahan yahay injineerku ama nuclear ku sameeyo ama waxaan ku sameeyo ugu dambeyn waa tumaal u adeegsanayaan cidda politics iyo dhaqaalaha iyo cidda tan wadanka ku hagta idan culumul insaaniya dunida lagu haga engineering kana waa loogu xoog sheegtaa dunida de culumul insaaniya khaliya haddaad la timaado waa muruq balhid weeyaan marka engineerku waa muruqi laakiin hoggaanku waa human scienceska dunida hogaamiya haddaba waxaynu u baahannahay human scienceska haddii aynan kala garanin maxaa diinteena iyo dhaqankeena iyo dadnimadeena waafaqsan maxaan se waafaqsanayn waa tii reer galbeedku doonaya waa ambanaynaa ambad baynu baranaynaa haddaynu se kala garan karno maxaa ina anfacay iyo maxaan ina anfacaynin horumar baynu samayn karaynaa sala allahu calaa nabiyina maxamed waala alihi wasaxbihi wasallam